Ikraan Xuseen Faarax oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ku nool dowlad-deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qoraxay ayaa sheegtay in sawirkeeda si khaldan loo isticmaalay iyadoona lagu khalday gabadhii Soomaaliyeed ee geeriyootay Allah naxariistii janno. Hasiye Ikraan Tahliil Faarax oo ka mid ahayd sirdoonka NISA ee dalka Soomaaliya. Gabadhan oo aanu ku booqanay guriga ay ka degan tahay magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa ka warbixisay sababta keentay in sawirkeeda lagu khaldo Ikraan Tahliil Allah u naxariiste. Waxayna caddeysay Ikraan oo ah gabadh qurbo joog ah in ay ka siman yihiin gabadhii la dilay 5 siyaabood oo kala ah magacyadooda iyo magacyada awowgooda oo isku mid ah in ay waddanka Ingiriiska ay ku wada noolaayeen, in ay da'da ay ka siman yihiin, in wajiyadooda ay is shabahaan, in magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska ay ku wada noolaayeen. Haddaba waata Ikraan Xuseen oo sheegtay inay ka cabsi qabto in loo dhibaateeyo sawirkeeda sida khaldan loo isticmaalay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Ikraan Xuseen Faarax, u dhalatay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qoraxay, ku sugan degmada Shilaabo. Walaasha Ikraan Tahliil Faarax oo magaca iyo ka awowga iyo magaca Ikraan baan wadaagno. Gabadhaas oo la isku lifaaqay sawirkeeda Allah u naxariistay sida la sheegay ay dishay Al-Shabaab. Waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo faamilkeeda, qaraabadeeda ugu dhowba, maadaama sawirkeeda la isku lifaaqay. Waxaan ka codsanayaa ummadda youtuberada, cid kasta oo social media isticmaasha, wariyaasha, wajajka caanka ah, BBC-da kulli inay ka saaraan sawirkeyga, maadaama aan ahayn gabadha dhimatay, ahayna Ikraan Xuseen Faarax. gabadha dhimatay Allah u naxariistay tahay Ikraan Tahliil Faarax. waxaan u sheegayaa dhammaan inta isticmaashay sawirkeyga, maadaama aan ahay gabadh qurbo jooga ka timaaday Ingiriiska. waxaan codsanayaa maadaama caqabadii u keeni karto sawirkeyga la isticmaalay in laga saaro baraha bulshada, raaligelinna laga bixiyo si waliba degdeg ah. caqabadu waxaan u maleynayaa inay ka timid maadaama aan ugu Ingiriiska ka yimid ayaduna Ingiriisku tagtay, inay caqabada keentay in la isku kaana khaldo ay tahay midaas baan u maleynayaa. waxaan si naxariis looga codsanayaa cid kasta oo isticmaashay sawirkeyga inay ka saarto social media.